bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii aynu halkan idinkaga soo gudbin jirnay. fadlan janalkeena haddii aad ku cusub tahay oo aadan horey subscribe u saarin, fadlan hadda subscribe saar, sidoo kalena gambaleelka furo si mar walba ay kugu soo dhacaan xogaha xasaasiga ah iyo wararka aynu halkan soo gelino. muuqaalkan haddii aad ka heshay, fadlan like saar, siina sheer garow asxaabtada la wadaag. dhegaystayaal warkeena qodobada xasaasiga ah ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah heshiis ay gaareen madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble, iyadoo heshiiskaasi lagu dhawaaqayo dhawaan haddii aysan imaan caqabado ka hor imaan kara heshiiskaasi. haddaba maxaa looga heshiiyey murankii wasaaradda amniga, kiiska Ikraan Taaliil iyo arrinta nabad sugidda? xogtii Fahad Yaasiin uu gudbin lahaa golaha amniga qaranka xagee ayay ku dambeysay? goormees la soo bandhigayaa? iyadoo maalintii shalay ahayd uu Fahad Yaasiin la kulmay qaybo ka mid ah taliyayaasha ciidamada, ayuu maantana waxa uu la kulmay taliyayaal kale oo ka tirsan ciidamada dowladda. haddaba muxuu daaranaa kulanka maanta ay yeesheen qayb ka mid ah taliyayaasha ciidamada dowladda iyo sidoo kale taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin? madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen, oo asagu ay aad isugu dhow yihiin madaxweyne Farmaajo, ayaa waxa uu magaalada Baydhabo u diiday inuu tago mid ka mid ah golaha wasiirada, oo asagu markii uu bilowday khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble uu hiiliyay ra'iisul wasaare Roble. haddaba waa wasiirkaasi. safiirada dalalka shisheeye ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa iyagu waxa ay saacadihii ugu dambeeyay ay bilaabeen inay culaysyo waaweyn ay saaraan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble. dhegaystayaal warkeena qodobada wada xasaasiga ah ayaad ku maqli doontaan ee ku soo dhowaada warkeena oo fidsan. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa ay heshiis ka gaareen khilaafkii u dhaxeeyay oo maalmihii ugu dambeeyay ay dadka Soomaaliyeed aad u dhibsadeen. maalinta biri ah ayaa loo badinayaa in warmurtiyeed ay soo saaraan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, warmurtiyeedkaas oo ay kaga hadlayaan qodobada ay ku heshiiyeen. haddaba ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa sida aynu xog ku helnay waxay ku heshiiyeen qodobadani. kow, agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaa soo magacaabi doona madaxweyne Farmaajo. agaasimaha kumeel gaarka ah ee hadda jooga mudane Yaasiin Farey waxaa loo magacaabi doonaa agaasime ku-xigeenka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Cabdullaahi Maxamed Nuur oo Roble ugu magacaaban wasaaradda amniga waxaa loo wareejin doonaa wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana la filayaa Generaal Mukhtaar Afrax inuu asagu noqdo wasiirka amniga, waxa uuna hadda ku fadhiyaa wasaaradda arrimaha gudaha. arrinta kiiska sargaalad Ikraan waxaa lagu heshiiyey in loo daayo hay'adaha cadaaladda lana garab siiyo hay'adaha cadaaladda, iyadoo la dhageysanayo xogta nabad sugidda ay soo bandhigayso, markaa kadibna hay'adaha cadaaladda loo daayo oo kiiska sargaalad Ikraan Taaliil ay galaan. qodobka afraad ee madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ay ku heshiiyeen ayaa waxay tahay madaxweyne Farmaajo wuxuu ra'iisul wasaaraha u fasixi doonaa awoodiisa oo horay u hakiyey. war-saxaafadeedkana waxaa lagu xisi doonaa in laga fogaado tillaabooyinka xiisad keeni kara iyo in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay wada shaqayn buuxda yeeshaan. sida muuqata heshiiskani waxaa ku adkaaday faa'iido weynna ay ugu jirtaa madaxweyne Farmaajo, maadaama meesha laga saaray Cabdullaahi Maxamed Nuur oo uu ra'iisul wasaare Roble u magacaabay wasiirka amniga, iyo Bashiir Goobe oo asna u magacaabay taliyaha kumeel gaarka ah ee nabad sugidda, iyadoo labadaas mas'uulba boosas muhiim ah loo magacaabay. madaxweyne Farmaajo ayaa isagu waxa uu soo magacaabayaa taliyaha rasmiga ah ee nabad sugidda. inta uu soo magacaabinna waxaa si kumeel gaar ah nabad sugidda u sii haysanaya gaashaanle Yaasiin Farey, oo madaxweyne Farmaajo uu si kumeel gaar ah ugu magacaabay taliyaha nabad sugidda. dagaal adag ayay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ku galeen qofka noqonaya taliyaha nabad sugidda, iyadoo markii dambe uu arrintaasi ku adkaaday madaxweyne Farmaajo, oo madaxweyne Farmaajo uu soo magacaabayo taliyaha cusub ee rasmiga ah ee nabad sugidda. madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu diidanaa in sirta sirdoonka Soomaaliya uusan gacanta u gelin cid uusan ku kalsoonayn, waxaana maalmihii la soo dhaafay adkaatay in ra'iisul wasaare Roble uu Bashiir Goobe geeyo xarunta nabad sugidda, oo mararkii uu damcay inuu halkaas geeyo ay ciidamada duufaan ay difaac ka galeen xarunta nabad sugidda ee Habar Khadiijo. sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa dagaal adag ka galay aadna uga soo horjeestay in Cabdullaahi Maxamed Nuur uu hogaamiyo wasaaradda amniga
oo iyadu ah meel xasaasi ah maamuleysana siyaasadda amniga dalka, iyadoo Cabdulaahi uu yahay mid ka mid ah mucaaradka madaxweyne Farmaajo. kiiska Ikraan Tahliil Rooble ayaa u muuqda in uu sidii hore ka soo dabcay, maadaama kiiska Ikraan Tahliil uu Rooble markii hore ka dhiganayay hub lagula dagaalamo madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin, waxaana kiiska Ikraan Tahliil lagu heshiiyey sida aynu warar hoose ku helayno in loo daayo hay'adaha cadaaladda iyadoo garab la siinayo hay'adaha cadaaladda. dhanka kale, la taliyaha amniga qaranka sidoo kalena ahaa taliyihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin ayaa isagu isu diyaarinaya soo jeedinta xogta kiiska sargaalid Ikraan Tahliil, iyadoo markaa kadibna hay'adaha cadaaladda ay geli doonaan kiiskaasi loona gudbin doono xogta nabad sugidda. wararka aynu helayna waxa ay tibaaxayaan in sababta keentay in dib u dhaco kulankii golaha amniga qaranka ee uu Fahad Yaasiin kusoo gudbin lahaa xogta sargaalid Ikraan Tahliil ay tahay wada hadallada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble u furmay, iyadoo labadii maalmood ee la soo dhaafay wada hadalladaasi lagu mashquulsanaa. waxaa qurux badnayd inta aan la bilaabin waanwaanta laga dhex wada madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble in marka hore la dhageysto xogta Fahad Yaasiin, markaa kadibna looga wada hadlo madasha lagu heshiisiinayo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble arrinta kiiska Ikraan Tahliil, si kiiska Ikraan Tahliil meel loogu ogaado. dhanka kale, warar lagu kalsoonaan karo oo aynu helnay ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble uu baajiyay banaanbax ay qabanqaabiyeen ehelada Ikraan Tahliil oo ka dhici lahaa magaalada Muqdisho. banaanbaxan ayaa shalay wasiirka amniga ee uu Rooble magacaabay Cabdulaahi Maxamed Nuur waxa uu fasaxay inay qabsadaan ehelka Ikraan Tahliil, waxa uuna ka digay in ciidamada booliska iyo nabad sugiddu ay horistaag ku sameeyaan banaanbaxaasi. ra'iisul wasaare Rooble ayaa la sheegay inuu baajiyay banaanbaxa si aysan uga dhalan xaalad nabadgelyo darro, waxaana ehelada Ikraan Tahliil iyo dadkii kale ee banaanbaxa abaabulaya ka codsaday in dib loo dhigo banaanbaxaasi. sababta Rooble uu u hor istaagay banaanbaxaasi ayaa waxa ay muujinaysaa in asaga iyo madaxweyne Farmaajo ay isku soo dhawaadeen oo sidoo hore ay isaga sii dhawaadeen. sidoo kalena warbaahinta qaranka waxaa la arkayay saacadihii la soo dhaafay iyadoo tabinaysa wararka madaxtooyada iyo sidoo kale madaxweynaha oo maalmihii la soo dhaafay ay si tabin jirin, iyadoo arrimahaas oo dhan ay muujinayaan isku soo dhawaanshaha madaxweyne Farmaajo, loona badinayo sida aan xogta idinkugu sheegnayba in dhowaan ay soo saaraan qodobadii ay ku heshiiyeen, iyadoo dadka Soomaaliyeed ay badankooda aad uga soo horjeedaan khilaafka waqtigan kala guurka ah u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. dhanka kale, agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin ayaa isagu galabta waxa uu kulan albaabada u xiran yahay uu magaalada Muqdisho gaar ahaan madaxtooyada kula yeeshay saraakiil ciidan. saraakiishan ciidanka ayaa iyagu waxay yihiin saraakiisha ama taliyaasha nabad sugidda ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo sidoo kale taliyaasha saldhigyada booliska magaalada Muqdisho. taliyaashan kulanka uu galabta la yeeshay waxaa ka horeeyay kulan uu maalintii shalay ahayd la yeeshay Fahad Yaasiin qaybo ka mid ah taliyaasha ciidamada sida taliyaha booliska Soomaaliyeed Xijaar iyo sidoo kale taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxan Qorole iyo sidoo kale taliyaha nabad sugidda ee madaxweyne Farmaajo magacaabay Gaashaanle Yaasiin Farey iyo taliyaal kale. Fahad Yaasiin oo isagu 2 maalmood uu jooga magaalada Muqdisho ayaa labadii maalmood uu joogay magaalada waxa uu ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo kala gedisan, iyadoo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble ay dhaqdhaqaaqyadaasi walaac ku abuureen. maalmihii uu socday khilaafka u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble, meelaha lagu loolamayo waxaa ka mid ahaa arrinta amniga cidda hogaaminaysa, dhaqaalaha iyo meelo kale. sidaa daraadeed waxaa loo badinayaa kulamadan uu magaalada Muqdisho labadii maalmood ee la soo dhaafay uu kula kulmay Fahad Yaasiin taliyaasha ciidamada inay tahay sidii uu u xoojin lahaa saameynta ay asaga iyo madaxweyne Farmaajo ku leeyihiin hay'adaha ammaanka. dhanka kale, dowlado uu ka mid yahay dowladda Mareykanka ayaa iyagu waxa ay bilaabeen saacadihii la soo dhaafay cadaadis hoose oo ay ku saarayaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble inay si degdeg ah u heshiiyaan. madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ayaa iyagu sida la sheegay waxa ay ku qasban yihiin in ay heshiiyaan maadaama
dalku uu hadda ku jira xaalad adag oo kala guur ah. dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegaya in khilaaf culus uu soo kala dhexgalay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur. khilaafkan oo muddo soo taagnaa ayaa la sheegay in ugu dambeyn uu gaaray meel sare kadib markii xog la helay in madaxweyne Laftagareen uu amray inuusan Baydhabo imaan karin wasiirka cadaaladda Soomaaliya. khilaafka Laftagareen iyo wasiirka cadaaladda ayaa dhashay kadib markii wasiirku uu safar aysan ka warqabin madaxda Koonfur Galbeed ku tagay degmooyin ka tirsan gobolka Bokool. wasiirka ayaa safarkii ugu dambeeyay ee gobolka Bokool waxa uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax xildhibaan isagoo boorar ku dhagsaday degmada Waajid, wuxuuna intii uu joogay Bokool eedeeyay maamulka Koonfur Galbeed ee Shariif Xasan iyo kan hadda ee Laftagareen. madaxweyne Laftagareen ayaa la sheegay in wasiirka uu u goodiyay inuu yimaado Baydhabo. kursigaaga waxa uu yaalaa Baydhabo, Bokool ma lagu dooran doono, Baydhabona ma aha meel iska yimaado ee taas ku xisaabtan, ayuu yiri madaxweyne Laftagareen sida ay noo sheegeen xubno ku dhowdhow wasiirka cadaaladda Soomaaliya. wasiir Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa booska u jooga gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo asna la sheegay in uu khilaaf kala dhaxeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen. waxaa jira khilaaf sanado soo jiitamayay oo u dhaxeeya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Mursal. khilaafkaas oo asagu ku salaysan loolanka cidda noqonaysa ama cidda ugu sareynaysa siyaasiyiinta ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. hadda ka hor 2018 Laftagareen iyo Mursal waxa ay ku loolameen gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo Mursal uu ku adkaaday gudoomiyenimada baarlamaanka. ka hor waxaa jira loolan adag oo u dhaxeeya labada dhinac. wasiirkan cadaaladda Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa asagu maalmo ka hor waxa uu si weyn u garab istaagay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta injineer Maxamed Xuseen Rooble kadib markii uu qarxay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble. waxaa jira wasiirro badan oo ayagu garab istaagay ra'iisul wasaare Rooble oo calaamad su'aal ay dul saaran tahay, taas oo laga yaabo inaysan dib u soo laaban. waxaana ka mid ah wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka Khadiija Maxamed Diiriye oo 5 sano la soo dhaafay aad ugu dhaweyd madaxweyne Farmaajo, balse markii uu qarxay khilaafkii u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble iyadoo la jirsatay ra'iisul wasaare Rooble. Khadiija Maxamed Diiriye ayaa laga yaabaa laftirkeeda sida la sheegayo in ay nabad iyo nolol ay ku ciriiriyaan xildhibaan inay noqoto mar kale. Khadiija Maxamed Diiriye ayaa la sheegay in laga yaabo in qof kale oo iyada ku beela ah inay dowladda u sharaxato xildhibaanka aqalka hoose ee magaalada Jowhar yaalla. Fahad Yaasin ayay ka hiilisay, waxay u hiilisay ra'iisul wasaare Rooble, waxay garab istaagtay taliyaha kumeelgaarka ah ee uu Rooble u magacaabay nabad sugidda Bashiir Goobe, iyadoo arrintaasi la sheegay inay aad uga xumaadeen madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasin. sidoo kale wasiirkan cadaaladda ayaa asagu ahaa wasiirka dhaariyay wasiirka amniga ee uu Rooble u magacaabay ee wasaaradda amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur, taas oo sharciga baalmarsan, iyadoo si toos ah looga dareemayo wasiirkaasi inuu taageersanaa Rooble. Rooble ma aha musharax, mana haysto dhaqaale iyo siyaasad uu kaga dhigi karo qof xildhibaan. sidaa daraadeed waxay wasiiradani ay khatar geliyeen soo laabashadooda xildhibaannimo iyadoo weliba hadda lagu jiro xaalad kala guur ah oo aysan cidiba u dirsan inay la kala jirsadaan madaxda khilaafka uu ka dhaxeeyay. sida aynu idin sheegnayba wasiiradaas ayagu garab istaagay ra'iisul wasaare Rooble ee xildhibaanada golaha shacabka ayagu ka tirsan haddana musharaxiinta ah oo ugu horeeya wasiirka cadaaladda, wasiirka waxbarashada iyo sidoo kale wasiirka gargaarka iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo kuraastoodu ay kala yaalaan magaalooyinka Jowhar, Garbaharey, Galmudug iyo sidoo kale Koonfur Galbeed. ayaa la sheegayaa in nabad iyo nolol ay dagaal adag ku gali doonto sida aysan mar kale u soo laaban. warkeena qodobadii ugu dambeeyay ayaynu ku jirnaaye. Fiqi ayaa weerar culus waxa uu ku qaaday Cali Yare Cali, gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir. wasiirka amniga gudaha ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa weerar culus oo afka ah ku qaaday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka Banaadir Cali Yare Cali.
axmed macalin fiqi ayaa sheegay in calaamadaha aakhiru zamaanka ay ka mid tahay gudoomiye ku-xigeen gobol uu subax kasta usoo shaqo tago siduu wax uga sheegi lahaa ra-iisul wasaaraha qaranka. fiqi ayaa soo qaatay xadiis laga wariyey nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee kaasoo ahaa idaa wasada alamru ligayri ahlihi fantadiri saaca, kaasoo macnihiisu yahay haddii xil loo dhiibo qof aana u qalmin sug saacadaha qiyaamaha. hadalka axmed macalin fiqi ayaa wuxuu si toosa ugu socday gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee maamulka gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali yare oo maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada si toosa ugu weerarayay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta injineer maxamed xuseen rooble. cali yare ayaa isagu waxa uu noqday mas-uul aana ka gaban difaaca madaxweyne farmaajo oo isagu uu aada ugu dhow yahay, waxaana maalmihii lasoo dhaafay aada loo arkayey isagoo bartiisa facebooka soo dhigaya qoraalo ka dhan ah ra-iisul wasaare rooble oo uu khilaaf kala dhexeeyay madaxweyne farmaajo.